Guddoomiyaha iyo Gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubbadda laliska ee dalkeena Soomaaliya ayaa ka qayb galay shirweynaha xiriirka volleyball-ka adduunka. Gudoomiye Maxamed Abuukar Xiire iyo Gudoomiye ku-xigeen Batuule Xaaji Nuur oo ka qayb galay shirweynaha xiriirka volleyball-ka adduunka ayaa maanta ay ka qayb galeen. Shirkan ayaa waxaa looga hadlayay horumarinta ciyaaraha volleyball-ka iyo sidoo kale horumarka laga gaaray xiriirada ay ka qayb galaya shirkan oo ay markaasi iyo ajandayaasha lagu horumarinayo ciyaaraha volleyball-ka ee adduunka. Soomaaliya oo qayb ka ah kuna matalayay Gudoomiyaha xiriirka kubbadda laliska Maxamed Abuukar Xiire iyo sidoo kale Gudoomiye ku-xigeenka ayaa maanta shirkaasi uga qayb galay, waxaana shirka looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa ciyaaraha volleyball-ka ee adduunka iyo kan Soomaaliya. Maamulka xiriirka kubbadda laliska ee volleyball-ka dalkeena ayaa ka warbixiyay horumarka ay ka gaareen ciyaaraha iyo inta ay markaasi ay wadeen maamulkan iyo waxyaabaha uu qabsoomay iyo kuwa hadda u harsan ee qaban doona. Shirkan ayaa waxaa looga hadlayay sidii markaasi qayb looga qaadan lahaa horumarinta isboortiga ciyaaraha kubbadda laliska ee adduunka. Soomaaliya qayb ay uga noqon lahayd. Sidoo kale xiriirka ayaa hadda qorsheynaya in ay markaasi qabtaan tartamo waaweyn si ay uga qayb galaan tartamada caalamiga ee kubadda laliska ay ka qayb gali doonaan. Waxaana Gudoomiyaha iyo Gudoomiye ku-xigeenkaba halkaasi ay ka jeediyeen khudbado kala duwan kuwaas oo ay kaga waramayeen marxaladaha isboortiga ee volleyball-ka dalkeena Soomaaliya sidii ay u horumariyeen iyo horumarka kale ee hadda la tiigsan doono. Shirka ayaa waxa uu yahay shirka ay iskugu yimaadaan xiriirada ku biyoobay ee volleyball-ka adduunka, kuwaas oo wadan walba ka soo qayb gala xiriirkan uu ka qayb yahay, lagana doonayo inuu ka qayb galo kulan walba. Madashan la isku imaanayo Congress-ka ay markaasi ku meel mariyaan hab maamuuska ciyaaraha kala duwan ee xiriirka volleyball-ka adduunka iyo sidoo kale waxyaabaha aan weli u qabsoomin oo la filayo in sanadaha soo socda isbeddel weyn laga sameeyo qaybaha kala duwan ee isboortiga ee volleyball-ka dalka. Waxaana la filayaa in isbeddelkaasi muuqda ay sameyn doonaan mas'uuliyiinta ugu sareysa xiriirka volleyball-ka ee dalkeena Soomaaliya oo hogaaminayo Maxamed Abuukar Liibaro iyo sidoo kale Gudoomiye ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha volleyball-ka ee dalka Batuule oo ay markaasi doonayaan sanadkan in horumar la taaban karo ka gaarsiiyaan tartamada oo idil ee dalka laga qaban doono iyo sidoo kale tartamada caalamka.